Affedersiniz yolumu kaybettim. Affedersiniz yolumu kaybettim. Affedersiniz yolumu kaybettim. Qof baa jidku ka soo lumay. Marka qof kale wadadii maraayay ayuu odhanayaa iga raali noqo waxaan ka lumay wadadii jidkii aan maraayay dariiqii ayaan ka lumay. Meeshii buu garan waayay wadadii meeshuu rabay uu ku socday geynaysay ayuu wada kale soo maray oo aanu garanayn. Markaa wuu lumay qofkii. Qof kale wadadii maraya ayuu weydiinay wadadii baan ka lumay iga raali noqo wadadii baan ka lumay. Affedersiniz yolumu kaybettim. Qofki markaa wuxuu weydiinayaa xaguu socday qofku xaguu rabay inuu tago. Markaa isagoo leh xagaad tegaysa xagaad ku socotay xagaad rabtaa inaad tagto xagaad aadaysaa isagoo leh. Nereye gitmek istiyorsunuz? Nereye gitmek istiyorsunuz? Xagaad rabtay inaad tagto xagaad aadaysay xagaad u socotay. Nereye gitmek istiyorsunuz? Waan soo dhiganay u iyo set istiyorsunuz in loo isticmaalay qof aad garanayn ama meelaha dowladda ama qof kaa weyn. Halkana gabadhan ma garanayso qofkan markaa waa inay ugu jawaabto si ixtiraam ahaana. Istiyorsunuz. Istiyorsun ee saaxiibka ku odhanaysaa. Sultan Ahmet'e nasıl gidebilirim? Sultan Ahmet'e nasıl gidebilirim? Sultan Ahmet'e nasıl gidebilirim? Sideen u aadi karaa Sultan Ahmet'nima. Goobta Sultan Ahmed ma masjid baa xaafad baa. Waxay u baahneed Sultan Ahmed inay tagto ama qofkii baa u baahnaa masaajidka Sultan Ahmed inuu tago ama xaafadda la yidhaahdo Sultan Ahmed. Sidee u aadi karaa? Sultan Ahmet'e nasıl gidebilirim? Sultan Ahmet'e nasıl gidebilirim? Qofkii isagoo u tilmaamaya markaa düz git toos u soco wadadii ay haysay toos u soco düz git. Gabadh wax tilmaamiseeda hadalkeedii wadata waxay leedahay ondan sonra sağ saban. Ondan sonra sağ saban. Kadib midig u leexo. Markay hore u socotay hore u soco kabacdi midig u leexo. Düz git hore u soco kadibna midig u leexo. Ondan sonra sağ saban. Sonra waxa ku xiga soo ayna akhrinay saada iyo labada a ga iyo mushaage baa u dhaxaysa lama akhriyada. Waxa loo akhriyaa sidii qoynka oo kale khafiif ah ama shaqal dheer shaqalka hore bad shaqal dheer ka sii dhigaysa lama akhriyo mushaage waa ga khafiif. Waxaad leedahay soo ondan sonra sağ saban. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aad baad u mahadsan tahay. Bir şey değil. Bir şey değil. Soo dhawow ama you welcome. Thank you marka qofku dhaho you welcome. Soo dhawow. Bir şey değil. Waan sheegnay ga'daas dhibicda kolka kule lama akhriyo iyo mushaage ama qoyn khafiif haddaad ku dhawaaqi karto ku dhawaaq haddii kalena xarafka ka horeeya uun ka dhig xaraf shaqal dheer ah. Değil. E'dumaan kale ku sii daray. Değil. Bir şey değil. Bir şey değil. Soo dhawow. Casharkeeni halkan ugu joogaa caawa. Insha Allah waxaad isku soo diyaarisaan habeen walba oo Isniin ah iyo habeen walba oo Arbaca insha Allah inay noo soo geli doonto luqadda Turkiga barashadeeda. waxaan kaloo noogu soo kordhinayaa kanaalka luqadda
Dutch la dhaho. Waxaa ku hadlaa wadamo dhowra luuqada Dutch sida Jarmalka uu ku hadlaa Hochdeutsch, Switzerland way ku hadlaan Hochdeutsch, sidoo kale Austria way ku hadlaan. insha Allah luuqadaasan channelka ka bilaabanaa. Cidii xiiseynaysa inay barato iyo cidii wadamada joogta ee daruuri u ah inay bartaan, iyadana waxaan soo gelin doonaa habeenka Salaasada iyo habeenka Khamiista. 4 cisho ayuu ka socon doonaa channelka. casharada fiidiyoyadana soo gelin doonaa. nagana raali noqda habeenimo unbana awoodnaa inaan fiidiyoyada soo samayno aan soo gelino. subaxnimada waa daawan kartaa insha Allah haddaad habeenkii waqti u haynin. waxaa jira kanaal caruurtaan ugu talagalnay oo isna 3 cisho ee kale wiiga. 4 cisho halkan joogna ma 3 cisho aan u gelin doona barnaamijyada caruurta loogu talagalay. cidii danaynaysa kanaalkan caruurtaan ugu talagalnay waalidiinta meesha ku jira luuqada barta insha Allah kusoo biira kanaalkaas. kanaalkaas waxaad ka heli doontaan af Soomaaliga caruurta sidii u baran lahaayeen iyo sheekooyinka caruurta, diinta. kusoo dhawaada channelka, sii share gareeya cid kastoo u baahan luuqada Turkiga iyo luuqada Jarmalkaba sii gaarsiiya. waadna mahadsantihiin. waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillah.